naxariistiisa ballaaran hasiiyo ehelkiisa iyo qaraabadiisana waxaa leenahay sabir iyo iimaan. dadka xanuunka marka laga helay imiga waxa ay kala joogaan Yufle oo ah gobolka Sanaag, magaalada Burco, magaalada Hargeysa iyo magaalada Boorama. taa macnaheedu waxa weeye markaa in dadkan baaritaanku aan ku sameynay waxay kala ahaayeen kow dadkii hore xanuunka u soo dhacay qaar la kulmay oo baaritaan lagu sameeyey, labo dad iyagu iskeenay oo markii calaamadihii ka shakiyeen yimid xarumaha caafimaadka baaritaan loo sameeyey, saddex iyo dad isticmaalay nambarkii 988 oo adeega caafimaadku u tegey talo iyo baaritaan loo sameeyey oo markaas xanuunka looga helay, iyo dad aanu si aan u ogaano xanuunku intuu gaarsiisan yahay dadka ku jira goobaha ICU-ga la yiraahdo dadka aadka u buka lagu xanaaneeyo ku jira aanu ka qaadnay. intaa marka la isku geeyo waxay sheegaysaa in ay markaa dadkaasi dhammaantood yihiin dad xanuunka ama iyagu iskaga shakiyey ama baaritaan loo sameeyey ama ciddii ay soo waceen loogu adeegay ayay isugu jiraan.